halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. maalin wanaagsan idil ahaantiinba meel kasta aad nagala socotaan waa maalin salaasaa bisha shanaad ay tahay 12 sanadku waa 2020 goorshoogto waa 2 duhurnimo oo gowa wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxaa ugu mudan magaalada beledweyne boqolaal qoys ayaa ka barakacaya guryahoodii fatahaadda webiga awgi isla sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa fatahaadda webigaasi ku eedeeyay cid ay ugu yeedheen inay dana gaara wataan iyo weliba tuu kugu firood isku fahanto goor si aanad u fidnayn bulshada ka fogow dadkoo feejigoo qufaca faag hindhisadoo laabatada ku feeg ayoobe allow inta u ku fiday ayoobe allow caafimaad u fiday ayoobe allow waa kaalinta fanku ka qaadanaya wacyigelinta fiditaanka fayraska corona iyo magaalada Wuhan oo dhan oo dib loo baarayo fayraska corona aawadi Wuhan waa halkii hore uga bilowday iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina kamid yihiin barnaamijka waxa soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow waxaan ahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaare ee duhur wanaagsan qodobadaas oo fidsan way inoo dambeeyaan aynu ku horeyno wararkii caalamka oo ay Bushra Nuur Maxamed oo hoygeeda ku sugan ay inoo hayso Bushra mahadsanid Dhimbiil isbitaal ku yaala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa la weeraray waxaana lagu soo waramayaa in weli dableydii weerartay ay gudaha ku jiraan 8 qof oo 2 caruur ay yihiin ayaa ku dhaawacantay waxaana la badbaadiyay 70 qof qaybta hooyada iyo dhalaanka ee isbitaalka waxaa gacanta ku haysa hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF isla Afghanistan ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo lala eegtay dad ka qaybgalayay aaska taliyihii booliska gobolka bari ee dalkaasi gobolka Balkh ee ku yaala waqooyiga Afghanistan ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay duqeyn oo Mareykanka halkaasi ka fuliyay waxaa jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan in dadka duqeynta ku geeriyooday ay dad shicib ah ahaayeen iyo in kale Ruushka, Hindiya iyo Iiraan ayaa dhammaantood qaaday tallaabooyin waaweyn oo lagu qafiifinayo xayiraadihii dalalkaasi lagu soo rogay corona awgii Ruushka waxaa la ogolaaday in ay shaqaalaha warshadaha waaweyn ay shaqada ku laabtaan Hindiyana waxaa qayb ahaan la fasaxay gaadiidka dadweynaha gaar ahaan tareenadii oo xayiraada ka hor maalin walba ay raaci jireen guud ahaan Hindiya dad gaaraya 20 milyan oo qof magaalooyinka waaweyn dadka hadda waxay awoodaan inay isku safraan dhanka kale Iiraan ayaa qayb ahaan xayiraadii ka qaaday masaajidda dabka kacay isbitaal ku yaala caasimadda labaad ee Ruushka waxaa ku dhintay 5 qof oo la xanuunsanaa cudurka COVID-19 oo qaybta xaaladda degdeg ah ku jiray Shiinaha ayaa sheegay inuu fayraska corona ka baari doono dhammaan dadka ku nool magaalada Wuhan magaaladaas oo ah halkii uu ka soo bilowday fayraska hadalkanna wuxuu imaanayaa xilli uu fayraska haleelay dad cusub oo magaaladaasi ku nool Spain ayaa ka mid noqotay wadamada soo rogay in 2 toddobaad oo karantiil ah ay galaan dadka ka imaanaya wadanka dibadiisa Spain waxay isku dayaysaa in ay xakamayso fayraska maadaama ay hoos u dhacday tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa cusub ee ku dhacayo cudurka ugu dambeynna booliska magaalada Lagos ee Nigeria ayaa xiray 1400 oo qof oo lagu eedeeyay inay jabinayeen awaamiirta ay dawladda soo saartay ee lagu xakameynayay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 arrintan ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii la qafiifiyay xayiraadihii saarnaa magaalada balse dadka la xiray ayaa jabinayay bandowga habeenkii ee weli magaaladaasi saaran warkii dunida waa naga intaasan dib idinkugu celiyo Dhimbil iyo qaybaha kale ee barnaamijka aad bay u mahadsantahay Bushra oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka ee dhageystayaal u diyaar garooba idaacadeena duhurnimo oo fidsan aynu ku bilownay boqolaal qoys ayaa bilaabay inay guryahooda ka barakacaan markii labaad muddo 6 bilood gudahooda kadib markii uu fatahay webiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
dadka qaxaya ayaa isugu tegaya dhulka sare ee magaalada ku dhow iyo tuulooyinka beledweyn hoos yimaada. webiga ayaa lasoo sheegayaa inuu biyo badan sido iyadoo wadooyinka iyo xaafadaha magaalada qaarkoodna ay biyuhu fadhiyaan. wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa taleefanka beledweyne kula hadlay maxamed cabdi maxamuud oo ka mid ah odayaasha magaalada, wuxuuna marka hore weydiiyey bal xaaladda magaaladu ku sugan tahay iyo sida xaal yahay. magaalada inteeda badan way barakacday, eel jaalla ayay u barakaceen, qaarna waxay aadeen tuulooyinka fogfog duruufo jira aawadeed, sababtoo ah biyo aada u baaxad weyn oo awood badan oo la celin kari waayey ayaa magaaladii soo wajahay. meel walbana hadda biyihii way daadsan yihiin saacaddan. laakiin maamulka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo aan la hadalna waxay sheegeen in biyuhu ay aada uga yar yihiin sidii sanadadii hore ay ahaan jireen, islamarkaana gacanta lagu hayo oo la koontaroolay. marka miyaanay arrimahaasi muuqan hadda? ficlan shaqo badan waa la qabtay, laakiin shaqo weyn oo wax qabatay ma ahayn. hadda waxaa taaganahay magaalada faras magaalaheedii, argadii saldhigga booliiska horteeda iyadaan taaganahay. biyihii buundaweyn ka soo baxay, dadkii iyo gaariyaashii way mari kari laayihiin. kuwii kale oo gobolka ka soo baxayna xafiiskii barisaabka iyo madaxtooyadii dhulkaasoo dhan biyuhu way xiran yihiin. biyuhu mar hadday soo fakadaan waxay u baahan yihiin maareyn in la maareeyo si dadka looga badbaadiyo. jidkii la mari jiray xitaa hadda buundadii biyuhu way gooyeen. marka hadda saacaddan la taagaya waxba lagama qaban karo. biyaha in uuna xoogaa dadka laga sabata bixiyo moogiye. fatahaadii sanadkii hore dhacday markaad eegto baaxaddii ay la ekayd iyo biyaha hadda aad arkayso, maxaa farqiga u dhexeeya? anigu waxaan isleeyahay tii hore iyo tan tanaa weyn sida aragtidayda aniga iila muuqato. sababtu waxay tahay meesha hadda taagan tahay iyo meesha ugu dambaysa inta ka dhexayso weli waxaa laleeyahay wax dhafiisoo jira ma jiraan. biyuhuna dhagaxa iyo webiga inta udhexayso ku socdaan, baaxadooda iyo awoodooduna mid aada u weyn waayo. dadka magaalada ee aad adigu ka mid tahay xaggee u barakaceen qoysaskii iyo dadkii magaalada deganaa? dhammaan dadkaasoo dhan magaalada waa laga wada baxay intooda badan. magaaladana sideedaba waxaa jira biyo baxa kastoo timaado meelo yaryar oo aan laga barakicinaa jiro oo aanay biyuhu gelin inta badan, iyo guryo dabaqyaa qaar fuulaa jira. magaalada gudaheedana qaara ku dhex jira. hase ahaatee inta badan ummaddu way ka baxday magaalada, waxayna u baxeen magaalada dibaddeeda kore meesha eel jaale la yidhaahdo. qaarkoodna tuulooyinka u dhadhow degmadan ayay u barakaceen, baabuurna way qaateen. xataa ciidamadii waa ku waraa boorsooyinkooday ku ranayiin. hadda baabuurtay fuulaan xerihii ciidamaday ka baxayaan. nolosha dadkaa barakacay sidee tahay 6 bilood kadib markii labaad oo ay barakacayaan? taa cid walba oo caqlila way og tahay. dadka bini aadamka ee barakacay noloshooda oo awalba nolol aada u degan aan haysan oo 6 bilood oo keliya ku jiray xilli mataqaanaa oo nasasho ah, welina aan labadii lugood isla helin, inay xaaladoodu adag tahay cid waliba way garanaysaa. dhibaato culusna inay jirto cid waliba way garanaysaa. caqliga bini aadamka ee saliimka ayaana sheegaya. odayaasha magaaladaad ka mid tahay, maxaa keena in sanad walba fatahaaddu ay soo laalaabato, weliba tani ay 6 bilood oo keliya maqan tahay? wallahi horta waxaan dabeecaddaa keentay adduunyada adakaysa maanta dabeecaddu way isku bedelaysaa. awal 20kii sane hal mar webigu soo bixin jiray, mar dambe haddana 10kii sane maruu soo bixin jiray, mar dambe 8 sane maruu soo bixin jiray. hadda wuxuu bilaabay inuu si joogtaa sanadla u soo baxo. sanadlihii uu ka soo gaabiyey hadda 6 bilood gudaheed buu soo baxayaa. taasi marka waxay u baahan tahay in diyaar garow fara badan la sameeyo, shacabka isku tashadaan. webigu magaalada intaanu soo gaarin ka hor 2 webi oo labada dhinac mar iyo qoraxsin u kala leexata la sameeyo oo la qodo oo la weyneeyo si biyahaasi markay kusoo dhow yihiin magaalada ay u qaybsamaan oo dhinacyada uga baxaan. laakiin waxaa la yidhi dadkiina magaalada degan waxaad u barateen in aad gacan horsataan hay-adahaas, marka idinkaaba horseedaya inaad baxdaan oo bannaankii tagtaan iyadoon magaalada biyo badan soo gelin. ficlan warkaas waa iska dacayad raqiisa. mana khiyaasayo aniga nin gurigiisa oo qoyo oona qoyanayn uu qalalan yahay inuu baxaayo ma khiyaasayo. waa dacayado raqiisa. shacabkaanne hadday baxaan iyo hadday joogaanba cid banaanka wax ku siinaysa male. hadda qaara waxay u qaxeen tuulooyin magaalada u jirta ilaa 160 kilomitir. ayagaana isku biilay cid ku biilaysa male, hay-adina ugama daba tagto. qaar waxay u qaxeen 30 kilomitir, qaar waxay u qaxeen 40 kilomitir, qaar waxay u qaxeen magaalada afkeeda hore. way jiraan dad masaakiin oo meelay aadaha ka ribaa sida dadka xamaaliyaasha magaalada ka ahaa oo alyoomka ku noolaa. kuwaasi dhibaato aad u fara badan ay qabaan. laakiin dadka kale oo ama ganacsatada ahaa ama dibadaha wax looga soo diri jiray ama shaqaale ahaa hay-adaha u shaqayn jiray, kuwaasi meel kastay tagaan waa isku biili karaan. niman lacag u baahanna maaha. kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi maxamuud oo u warramayay ibraahim maxamed aadan, wariyaha b b c da ee muqdisho. maxamed cabdi waa mid ka mid a odayaasha magaalada beledweyne. maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku eedeeyey in dad dana gaara leh ay ku lug leeyihiin fatahaadda webiga shabeelle ee ku soo laalaabatay magaalada beledweyn, gaar ahaan tan hadda ugu dambeysay oo ay sheegeen in si ula kac ah loo furay meelihii laga moosay webiga. waxay sheegeen in tallaabo sharci ay ka qaadi doonaan dadka ay tuhunsan yihiin oo aanay magacyadooda sheegin.
wasiirka madaxtooyada hirshabeelle cabdulaahi maxamed cadow oo ku sugan beledweyn ayaa sheegay inuu socdo dadaal lagu doonayo in lagu yareeyo waxyeelada fatahaadda isagoo tilmaamay in xaddiga biyaha ee soo gelay magaaladu ay ka yaryihiin sidii sanadkii hore wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu isna warramay wax aad looga xumaado waay wax aad looga naxawiyo waa runta 6 bilood kadib inaan haddana caawa aan maanta ka qaylino biyo inay haddana magaaladii soo galaan wixii aan kala saarno tii hore iyo maanta horta alxamdulilah wax isu dhow maaha tan waxaad moodaa in wax la qabtay muddo yaran wax lagu qabtay 28 abriil ayaa tensionkaana dhacay oo gudoomiyaha gobolka aan desfaagareeyey problemkan soo socdo shaqadana waxay bilaabatay may 2 ilaa haddana habeenay maalin la shaqaynayo wax weyn baa la qabtay marka hore aad baan ugu xunnahay wax hadda maanta biyahan yaro soo fakaday 3 meelba aan loo kala qaado waxaa jiro caado laga dhigtay oo reer beledweyne ay ka dhigteen dadka shacibkana maaha dad yar ama NGO ha u shaqeeyaan ama dana gaar ha lahaadaan oo shaqo kastoo maanta gudoomiyihii gobolka iyo tiimkiisa iyo guddiga ganacsada ay qabanayaan in biyihii lasoo furayo si ula kaca wasiir yay tahay cidda biyaha soo furaysa ee aad ka hadlayso cidda aan ka hadlayo oo biyaha soo furayo waa cid ku dhex jirta bulshada ah lasoo adeegsanayo lacag lagu siinayo si meeshaan looga sameeyo fatahaaddan lacag oo macno badan oo ujeedo badan ah laakiin waxaan arkaynaa in maamulkii iyo guddigii ku jiray ay joogaan dhammaan goobihii ay biyuhu ka soo fatihi lahaayeen marka xaggee ka sameeyaan fatahaaddaas iyagu fatahaadda waxa weeye marka gudoomiyihii gobolka iyo nimankii ganacsiga ay sameeyeen iyo webiyadii waraaboole iyo kelihille iyo meel walba ay soo wada xireen oo buurar iyo carrabuur ah loo sameeyo jawaanadii carrada qaar baa inay furaan ilaa habeenkii 24/7 naftirkeeda waardiya laga raba oo askartii marmarka qaarkood aad ramadaanna ay tahay oo meeshii markii laga soo tago jawaanadii qaar ka bixinayo waxaasoo dhan wasaaka shir baa la qabtay olaamaha amniga weli booliiska oo annaga aan si toos u xukunay haddaan nahay hirshabelle saaka lala hadlay waa lagu wada jiraa waxaana maanta way dhaceen waa ka xunnahay inay dhacaan laakiin sidii ay tii hore u dhacday uma dhacayaan magaaladana waxa waaye haddana waa la bartay in biyihii la iska celi karo moraalka dadkii waa soo wada kacay shaqadii waa loo wada taagan yahay haddadan aan kula hadlayo shir kale lagu jiraa wada emergency ah wixii waa dhaceen laakiin maanta reer beledweyne waxay ogaadeen waa laga soo daahay way soo daaheen weli markaan la sheekaystay qolooyinkii ganacsiga oo ganacsatada ahayd oo guddiga fatahaadda waxay nagu yidhaahdeen waa hore ka hor inaan qabanay ahayd laakiin wax walba way dhacaan waxbaan laga bartaa wasiir danta ay ka leeyihiin dadkan aad ka hadlaysaad leedahay waxay soo fatahinayaan webiga maxay tahay lacagaysan u dhididin bay rabaan degdeg inay taajir ku noqdaan bay rabaan ummadaas bay rabaan dhiigooda inay cunaan waa wax laisla wada ogyahay haddii noqon lahayn qolooyinkan NGO ah waaba mashruuc baaba laga dhigtay beledweyne waa aragteen biyaheeda waa aragteen waa s way biyaha ku wada xiraarsan magaaladan in laga qixiyaa la rabaa dadkan laakiin qixi maayaan spiritkooda waa high 10 qof iyo 5 qof oo waxyaabaha loo soo diran gacan biraha lagu qaban doono hadduu alla yiraahdo maxkamad baan lasoo saari doonaa laakiin waxa maanta dhacay aad baa lagu xiyay habeen hore gudoomiyaha 4 habeenimo subax salaada subax meeshuu ku tukaday meeshuu ku suxuurtay weli biyo yaro ah markuu ka soo tegay ayaa biyahaas la furaya hadan gadaal baa lagaa sii furaya wasiir eedahaas oo dhan ee aad u jeedinaysa dadka aad leedahay waxay soo fatahinayaan webiga waxaa la leeyahay waxaad uga gol leedihiin inaad iska qaadaan mas-uuliyadda idinka saarnayd in aad wax ka qabataan fatahaadda webiga oo 6 bilood oo keliya ay kasoo wareegatay fatahaaddii hore $100,000 ayaa lagu kharash gareeyey ama lagu deeqay lacagahaas maxaa wax looga qaban waayay 6 bilood intaad leedihiin hadda dad baa biyo soo fatihiyey malaayiinta doolar hadda aan sheegayn waa maxaa anaga sidaad la sheegayo maalmahan siyaasadda Soomaaliya oo dhanba ay soo fursaartay Iiraan waa la socotaa inuu ninkii gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaji dhagaxu oo Iiraan 500,000 ee Somaliland kaliya soo dhigtaan gacanta ku haynaa lacagihii kale oo ayadan 600,000 oo doolar Djibouti ay 500,000 oo dowladda dhaxan ee haddana soo gaartay doolarkeena soo gaartay haddii laga hadlayo malaayiinka doolar waxa weeye dowladda dhexe anagoo la kaashanayno malaayiinka doolar lagu cunayo maaha waa mid lagu cunayo Nairobi mad Soomaaliya gudaheed maaha waana kuwaas waayo kuwaana halkan u joogo waana NGO haddaad maqashin waa non governmental organization way wasiir NGO-yada aan kasoo tagno lacagta dowladda federaalku ay bixisay sanadkii hore 500,000 bay ahayd Djibouti lacagta ay bixisay 600,000 bay ahayd Somaliland 100,000 bay bixisay lacagahaas haddii la isku dari lahaa oo shaqo looga qaban lahaa dad badan waxay leeyihiin fatahaadani ma soo laabateen walaalo horta mashruucan biyo xirinka wuxuu u baahnaanayaa maaha wax hadda oo 2 milyan 3 milyan oo dollar maaha projectkaas waa jira dowladda international corporazione di Italia ama dowladda Talyaaniga ayaa hadda ku howle ayagoo la kaashanaya FAO subcontractidooda waa wax hadda socdo oo hadda gabagaba ah dowladda dhexe iyo wasaaradda beerahana looga dambeynaya maamul ahaan annaga systemka hadda noo dhisano waxa waaye dowladda dhexe ay annaga hoos
nimaanaa xiriir fiican waanu leenahay marka lacagahan loo baahan yahay tan hadda aad sheegaysin waxa hadda ay haayeen oo xaaji Usmaan Dhagax wuxuu ka hadlay 500 kun oo dollar oo 100 kun laga bixiyo 500 kun oo dollar Somaliland maahine lacagihii kale oo aad sheegaysa 600 kun oo Djibouti iyo 500 oo dawladda dhaxan Turali soo gaartay Hirshabelle soo gaartay hadda maanta qasnada wasaaradda maaliyadda Hirshabelle ay ku jirtaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka madaxtooyada Hirshabelle Cabdilaahi Maxamed Cadow oo ku sugan beledweyne oo u waramayay wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan dhageystayaal wali halkaan nagala socotaan waa BBC xilli goor sheegtu tahay 2:15 daqiiqo oo la qadar 10 sekan BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatanna magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa sameynaysa qorshe ay ku baadhayso dadkeeda tiro ku dhow 12 milyan oo qof oo ah dadka halkaasi ku nool ayaa laga wada baadhi doonaa xanuunka COVID-19 sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dawladda qorshuhu wuxuu u muuqdaa inuu marayo marxaladiisii hore iyadoo dhammaan degmooyinka Wuhan loo sheegay inay soo gudbiyaan faahfaahinta si tijaabada loogu sameeyo 10 maalmood gudahood Faarax Lamaane ayaa xogtaasi inoo haya arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Wuhan oo ah halkii uu cudurku ka bilowday 6 kiis oo hor leh laga diiwaan geliyay horaantii toddobaadkan tan iyo 3 bishii April wax kiisas laguma arag Wuhan oo xayiraad adag ay saarneyd muddo 11 usbuuc ah ayaa waxa la bilaabay in si tartiib ah dib loogu furo 8 bishii April sida iskuuladii iyo ganacsiyadii iyo gaadiidkii dadweynaha oo si tartiib ah u soo laabtay hase yeeshee kiisaska laga helay dhisme deegaan ah ayaa waxa ay khatar gelinayaan nolosha caadiga ah ee soo laabanaysa sida ay sheegayso warbixin uu wargey soo xigtay dukumeenti ay hay'adaha guduhu isu direen ayaa waxa uu dhigayaa in degmo kasta ay duhurnimada maanta la timaado qorshe baaritaan oo 10 maalmood ah waxaana degmo kasta ay mas'uul ka tahay qorshaheeda kaasoo ku salaysan tirada dadka ku nool ayadoo mudnaanta la siin doono meelaha ay dadku aadka ugu badan yihiin hase yeeshee mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka oo ay soo xigatay jariidada la yiraahdo Global Times ayaa waxa uu sheegay in baaritaan magaalada oo dhan laga sameeyo uu noqonayo mid aan suuragal ahayn oo qiimo badanna ku kacaya Peng Xiong oo ah agaasimaha qaybta caafimaadka dadka aadka u liita ee isbitaalka Zhonghang ee jaamacadda Wuhan waxa uu taa bedelkeeda sheegayaa in loo baahan yahay in baaritaanka uu diiradda saaro shaqaalaha caafimaadka dadka nugul iyo kuwa la tacaalay kiisaska agaasimo kale oo ka tirsan jaamacadda Wuhan waxa uu isna sheegay in tiro badan oo ah dadka ku nool Wuhan oo lagu qiyaasay iyagu 3 milyan oo qof horeba loo baaray haatanna Wuhan ay awood u leedahay in 10 maalmood gudahood ay ku baarto inta dhiman oo ah 6.8 milyan oo qof wariye BBC-da ka tirsan oo Shiinaha jooga waxa uu sheegayaa in Wuhan aysan doonayn inuu khasaaro juhdigii adkaa ee la geliyay la dagaalanka cudurka oo uu si sahlan mar kale u soo laabto xanuunka coronavirus aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi inala socodsiinayay haatanna hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya musiibo ka dhacdo Soomaaliya haddii coronavirus aan la xakamayn waxay sheegeen inay aad uga badan tahay tirada kiisasku inta dawladdu sheegtay ee kunkiyo dheeraadka haddana dadka Soomaalida inkastoo caqabado badan jiraan oo xaaladdu sidaa u adag tahay waxay isku dayayaan inay qaab madadaala ay dadka uga wacyigeliyaan fiditaanka fayraska corona warbixin ay amuurtaasi ka diyaarisay tafatiraha Afrika ee BBC Mari Haba waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow bulshada Soomaalida ayaa ah bulsho badankeed ku tiirsan sheekooyinka la yidhida gabayo iyo heeso ayaa loo alifay si bulshada looga wacyigeliyo inay si joogto ah gacmaha u maydhaan iyo inay dadku kala fogaadaan ayna booqanin dadka buka xataa wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu alifay hees balse waxa Soomaaliya ka jira caqabado aad u badan dagaallo sanado badan socday abaaro iyo musuqmaasuq ayaa la hadhay adeegyadii caafimaadka ee dalkaasi malaayiin ayaa barakacay oo ku nool xerooyin ay barakacyaal buux dhaafiyeen oo ay dadku ka heleen biyo nadiif ah iyo saabuun ay gacmaha ku maydhaan kala fogaanshaha bulshadana ay suuragalka ahayn ciidamo ayaa loo howlgeliyey si ay barakacyaasha u gaarsiiyaan maaskarada afka iyo sanka lagu xirto ciidamada ayaa magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ka wada wacyigelin ku aadan COVID-19 iyaga oo basas adeegsanaya oo shacabka gaarsiinaya fariimo ku qotama sida ay cudurka isaga ilaalin karaan
majaajilistayaal iyo farshaxaniistayaal ayaa iyaguna qayb ka ah dadka loo howlgeliya wacyigelinta bulshada. farshaxaniistaha soomaaliyeed ee caanka ee aamin arts ayaa xirfadiisa sawir wacyigelinta bulshada ku wacyigeliyo isagoo sawiro fariimo xambaarsan bulshada la wadaago. dhalinyarada majaajilaystayaasha ah ayaa bulshada iyaguna gaarsiiya muuqaal ay ku gudbinayaan fariin ah in la kala fogaado, gacmaha sida ugu habboonna loo dhaqdo, iyaga oo tilmaamo siinayo. muuqaalkaasi oo noqday mid si weyn xagga internetka looga daawado oo ay daawadeen 200,000 oo qof. xagee ku socotaa? dee waa hodheelkan gelayna. hodheelka mee farxalka arkay? farxal maxaya? ummadda hala soo galan cudur iyo waxe ka farxalo. cudur buu qabaa lagu yidhi? maya waxa weeye ka hortag iska farxalo waad u baahan tahay. caqabadaha ugu weyn ee covid-19 ku aadan wuxuu yahay aragtida khaldan ee laga aaminsan yahay. ururka al-shabaab oo qaybo badan ee dalka soomaaliya gacanta ku haya waxay sheegeen in cudurku gaalada loo soo diray, halka qaarna ay aaminsan yihiin dadka shiinaha oo keliya inuu ku dhaco, muslimiintana uu ku dhicin, amaba macmacaanada qaar oo la isticmaalo in cudurka looga dawoobayo. hadduu kugu firood isku fahanto goor si aanad u fidnayn bulshada. ka fogow dadkoo feejigoo qufaca faag hindhisadoo laabatada kufay. soomaaliyana waxay weli xakamayn la'dahay cudurkan safmarka ee aadka u daran. dalkaasi oo la daalaadhacaya ayax ku habsaday muddo 25 sano kadib iyo daadad dhibaatooyin lixaad leh u geystay, iyadoo ay dalkaasi ragaadiyeen in ka badan 25 sano abaaro iyo dagaalo ka socday dalka Soomaaliya. aad buu mahadsan cabdiraxmaan xaaji cadow warbixintaasina la socodsiinayay. bal haddii aynu dhuganno dhanka iyo ciyaarihiina, ururka soo qabanqaabiya ciyaarta caalamiga cricketka lagu magacaabo ee ICC waxay sheegeen in dib loo dhigayo ciyaarta oo la marayay wareegga 4 dhanka haweenka iyo raggaba, tan iyo inta coronavirus bay dhexeen si uun laga noqonayo. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii gaarka ahaa ee baafinta. baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi kaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdulaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha, mahadsanid Samiira. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Zeynab Xasan Xuseen oo joogta Qardho. waxay baafinaysaa Mayow Xasan Xuseen, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 2002. haddaba haddii uu maqlayo Mayow Xasan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Zeynab Xasan, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Qardho. Fardowso Cumar Jaamac oo joogta Qardho waxay baafinaysaa Maxamed Cabdiqani Cali, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jabuuti sanadii 2008. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Cabdiqani Cali ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fardowso Cumar Jaamac, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. kaafi maxamed nuux oo jooga Qardho waxa uu baafinayaa Mustafa maxamed nuux, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2010. haddaba haddii uu maqlayo Mustafa maxamed ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo kaafi maxamed, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. mako cabdi samatar oo joogta Qardho waxay baafinaysaa Bashiir cabdi samatar, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga sanadii 2013. haddaba haddii uu maqlayo Bashiir cabdi samatar ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo mako cabdi samatar, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. cabdinaasir xasan duure oo jooga Qardho waxa uu baafinayaa Leyla Khaliif Maxamed, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Leyla Khaliif ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdinaasir xasan, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. ayaan Khaliif Jaamac oo joogta Qardho waxay baafinaysaa Nuurto Khaliif Jaamac, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso Nuurto Khaliif Jaamac ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo ayaan Khaliif Jaamac, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. faadimo daahir ciise oo joogta Qardho waxay baafinaysaa Barre daahir ciise, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2010. haddaba haddii uu maqlayo Barre daahir ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo faadimo daahir, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. sawdo maxamed cilmi oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Diiriye Cilmi Xuseen, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sacuudiga sanadii 2018. haddaba haddii uu maqlayo Diiriye Cilmi Xuseen ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo sawda maxamed cilmi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo
xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. cabdiqani xasan durre oo jooga qardho waxa uu baafinayaa aamine cali daad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan muqdisho 2013. haddaba haddii ayna maqlayso aamine cali ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdiqani xasan durre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. shariif yaasiin guure oo jooga qardho waxa uu baafinayaa cumar yaasiin guure waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya sanadii 2012. haddaba haddii uuna maqlayo cumar yaasiin guure ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo shariif yaasiin guure iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. khadiijo cusmaan nuux oo joogta qardho waxay baafinaysaa axmed cusmaan nuux waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2011. haddaba haddii uuna maqlayo axmed cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo khadiijo cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. mushtaaq axmed xuseen oo joogtay Sweden waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Zahra Cabdiraxmaan Buule, Axmed Xuseen Maxamed, qadra axmed xuseen, hooda axmed xuseen iyo hibo axmed xuseen. dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan baligubadley sanadii 2018. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo mushtaaq axmed xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Sweden. faarax cabaas yunis oo jooga qardho waxa uu baafinayaa ayaanle cabaas yunis waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaani 2007. haddaba haddii uuna maqlaya ayaanle cabaas ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faarax cabaas iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. ismaaciil xasan xuseen oo jooga Jarmalka waxa uu baafinayaa cayne xasan xuseen waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan galgaduud sanadii 2016. haddaba haddii ayna maqlaysa cayne xasan xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ismaaciil xasan xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jarmalka. khadiijo cabdi samatar oo joogta qardho waxay baafinaysaa deeqo cabdi samatar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Suudaan 2012. haddaba haddii ayna maqlayso deeqo cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo khadiijo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. qadar banax cali oo jooga qardho waxa uu baafinayaa muxiidiin banax cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo muxiidiin banax cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo qadar banax cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. burhaan axmed oo jooga qardho waxa uu baafinayaa maryan axmed maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jarmalka 2011. haddaba haddii ayna maqlayso maryan axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo burhaan axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. ayaan geelle cumar oo joogta qardho waxay baafinaysaa xasan geelle cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen. haddaba haddii uuna maqlayo xasan geelle cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ayaan geelle cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. barkhad muudey oo jooga qardho waxa uu baafinayaa xaawo muudey cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2014. haddaba haddii ayna maqlayso xaawo muudey cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo barkhad muudey cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. nuurto mayow abuukar oo joogta qardho waxay baafinaysaa xaliimo mayow abuukar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya sanadii 2015. haddaba haddii ayna maqlaysa xaliimo mayow abuukar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo nuurto mayow abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. maxamed axmed jaamac oo jooga qardho waxa uu baafinayaa faadumo axmed jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2014. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo axmed jaamac ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. barni faarax khaalid oo joogta qardho waxay baafinaysaa cali faarax khaalid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Masar sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo cali faarax khaalid ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo barni faarax khaalid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho.
bashiir cabdulaahi naaleeye oo jooga qardho waxa uu baafinayaa warsame cabdulaahi naaleeye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan masar 2000. haddaba haddii uuna maqlaya warsame cabdulaahi naaleeye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiye bashiir cabdulaahi naaleeye iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay xadiye siciid wardac oo joogta qardho waxay baafinaysaa cabdiqani yuusuf cilmi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya sanadii 2012. haddaba haddii uuna maqlaya cabdiqani yuusuf cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xadiyo siciid wardac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. baafintana maanta waa nageynta isla sidoo kalena idaacaddeenii duhurnimo ayaa iyana intaa inaga ah. waxaan ahaa cabdiraxmaan cali dhimbilowda la socodsiinayey waxaa soo saarayaal ka ahaa cabdiqaadir yuusuf iyo cabdiraxmaan xaaji cadow. tan iyo intaaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay dhammaantayo maalintu ha idin samaato.